inuu diintiisa ilaashado. لأن عند المسلمين أغلى ما عندنا هو الدين. nolosha waxa uu qaalisanaa inuu haysanaa waa diin. nafta iyada ka qaalisan, maalka iyada ka qaalisan, caqliga iyada ka qaalisan. waxa bini aadamku hanto diin baa ugu qaalisan. waana nicma ilaahay uuna leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii. waxaan idin dhammaystiray baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala, waxaan idin kaamil yeelay diintiinnii, waxaan kaloo idin dhammaystiray baa ilaahay leeyahay nicmadaydii. waa nicma min akbari nicam. musiibo ama dhibaato qofka bini aadamka ku dhacana waxa ugu weyn musiibada diinta ka gasha. musiibada diintuna waxa weeyaan iimaan dabadeed inaad gaalnimo u baxdo, ama طاacad dabadeed inaad cisyaan u baxdo, ama hanuun dabadeed inaad dalaal iyo baadinimo u baxdo, ama diin dabadeed inaad diin la'aan u baxdid. musiibo kasta ama mushkilo kasta oo qofka haleeshana way ka fududahay musiibada qofka diinta kaga dhacda. waayo qofku hadduu diinta dhibtu kaga dhacdo waa wixii ugu qaalisanaayay u haystay. sida awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa dadka saalixiinta iyo awliyadiisa iyo dadka rabbi yaqaana iyo cibaadullahi saalixiin dacooyinkooda ugu fiican inuu ka mid yahay inay ahayd rabbana laa tuzi quluubana bacda id hadaytana. ilaahay qalbiyadayada ha weecinin oo aanan baadinnimo dib ugu noqonin intaanu hanoonnay kadib. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحانا كمدها بريدي النبي عليه الصلاة والسلام إنه رنجري اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إلهي مصيبة يدا يمتحانك يجا دين تيونا قدعي. وقالوا نبي قولها إلهو أدونك هكذا وحا وين أنو كفكرنا أما همك يجا وين الدنيا هكذا يقول النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة أي علماء مركا إلى هذا مصيبة كستوقفك كل عضة وفضل ضحي مركا الله يقول مصيبة الدين تقول عضة دين تهدي بكاسو قادو والعياذ بالله وحي كوغين سوا النار.